Jubbaland waxay maanta xiriirka u jartay dowladda federaalka Soomaaliya Puntland waxay la safatay Jubbaland halka ay SSC Khaatuma ay qoraal soo saarday oo ay dowladda federaalka ku tiri Puntland iyo Jubbaland raadi waa lagama maarmaan inaad raadisiin labadaas maamul ayay waxa tiri SSC Khaatuma haddaba ma moodaa in khilaafku uu marayo meel xasaasiya dhinaca kale galmudug ayaa waxa ay sheegtay iyaduna in ay doorasho qof iyo cod ah ay qabanayso iyadoo oofinaysa ama fulinaysa amarkii dowladda federaalka Jubbaland SSC Khaatuma iyo Puntland dowladda federaalka waxay moodaa inay ka sii fagaanayaan halka ay galmudug iyo Hirshabeellana ay dhinaca dowladda federaalka u sii dhawaanayaan waxaan eegi doonaa amarkan ka soo baxay ama warqadan ka soo baxday Jubbaland ee xiriirka ugu jirtay dowladda federaalka sida waxyaabaha ku qornaa waxyaabaha laga filan karo Xamse Cabdi Barro oo Kismaayo in uu tago raba laakiin macabsi baa jirta muxuu ka baqayaa damacu muxuu yahay qorshaha iyo sidoo ku tagay iyadana waan eegi doonaa waxa kale aan eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya waxay uga dhigan tahay arrintan akiran golaha wasiirada caawa shir yeelanayo xaaladda Jubbaland iyo xaaladda dalka shiraya soo dhawaada arrimahaas oo dhan baan falanqayn doonaa muuqaalkaas uu meel u gaaro fadlan la garaa sii share gareeyo saaxiibada la wadaag janalkana ku soo biira waa mahadsantihiin aan ku bilaabo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa waxa gabi ahaanba xiriirkii loogu jiray dowladda federaalka Soomaaliya sabab la xiriira khilaafka u dhexeeya labada dhinac Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay hakisay wada shaqayntii ay la lahayd dowladda dhexe iyadoo oo ku eedaysay inay jabisay dastuurka dalka Soomaaliya u yaala sidoo kale Jubbaland ayaa shuruud adag waxay ku xirtay ilaa inta ay dowladda dhexe ka soo noqonayso ama ay ku soo noqonayso dastuurka una ixtiraamaysa rabitaanka shacabka Jubbaland qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa waxa lagu yiri dowladda Jubbaland waxay cadeynaysaa inay hakisay xiriirkii wada shaqayneed ee ay leedahay xukuumadda federaalka Soomaaliya inta ay ka hoggaansamayso dastuurka dalka ixtiraamaysa rabitaanka shacabka Jubbaland ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland go'aankan ayaa daba socday xiisada u dhaxaysa maamulka Axmed Madoobe iyo Villa Soomaaliya kaas oo ka sii darayay 24 saac la soo dhaafay kadib markii Jubbaland ay u dhaqaaqday in ay si gaar ah u qabsato doorashadeeda dowladda dhexe ayaa diiday guddiga doorashooyinka ee uu xulay ama uu soo xulay ama uu magacaabay Axmed Madoobe waxayna intaasi ku dartay inaanay aqoonsan doonin doorashada ka dhacaysa Jubbaland oo Axmed Madoobe uu doonayo mar kale inuu ku soo laabto xukunka Jubbaland oo tan iyo asaaskii maamulkaasi uu kursiga ku fadhiyay waa maamulkii labada xiriirka u jiray dowladda federaalka Soomaaliya waxaana horay sidaan oo kale uga baxay oo xiriirka u jiray Puntland ayadoona khilaaf u dhaxaya labada dhinac oo iminka marayo meel aad u sareysa oo aad u kulul oo aad u sareysa dad badan ay la yaabayeen dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka soo jeeda Jubbaland ayaa dadaal badan waxa uu ku bixinayaa sidii uu Jubbaland u soo celin lahaa isagoo oo walwal badan ay ku hayso arrintaas iyo khilaafka meesha adag maraya oo ka cabsi qabo inuu mustaqbalka galaafto kursigiisa waa hadii uu Jubbaland uu ka soo jeeday uu qancin waaye horeyna uu Puntland asagu u matalayay meesha uga maqneed dhinaca kale Puntland ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay taageersan tahay garab taagan tahay difaacayso gar iyo gardarrada garab taagan tahay Jubbaland Puntland qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay ama hadalkeeda waxa ay ku sheegtay annagu Jubbaland baanu nahay amarka iyo sida ay doonayso iyo doonisteeda ayaynu rabnaa Jubbaland wada sax ay ku taagan tahay sidaas ay Jubbaland Puntland leedahay oo Puntland iyo Jubbaland maantay meel bay wada taagan yihiin horay ayaynu ogay in Puntland iyo dowladda federaalka xiriirkooda uu xumaatan iyo habeenkii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay oo ay siciidanay isagu kala boodeen haatanna 3 sano ay wada socdeen kadib Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ayaa kala booday laakiin Jubbaland waxa ay ka diiday waxay tahay nooca doorashada dalka ka dhacayo oo horay dowladda Soomaaliya waxay u sheegtay in doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay mid qof iyo coda hal guddi doorasho uu jiri doono oo guddigaasi doorashada uu noqon doono mid dowladda federaalka ay magacowda kaasina uu soo xuli doono ama uu qaban doono doorashooyinka maamul goboleedyada iyo macata federaalka laakiinse waxaad moodaa in dowlad goboleedka Jubbaland ay tiri guddi doorasho oo xamar laga xulay xamar laga magacaabay xamar laga amrayo xamar qofka ay doonto ay soo xulan karto annagu ma yeelino doorashada noo qabamaysa dastuurka iminka jira ayaynu ayidanahay guddi doorashada qabsanayna guddiga doorashada Jubbaland ayaana soo xulaya bay leeyihiin Jubbaland doorashada dhici doonta sidaas ayaa xaq ah sidaas ayaa sax ah sidaas ayaa doonaynaa bay taagan tahay
dhinaca kaleeto guddigaasi doorashooyinka waxaa aqbalay iyo nooca doorashada ee qof iyo coda iyo halka sane ee dheeriga ee loogu darayo maamul goboleedyada ee muddo kordhintaaba waxaa aqbalay soo dhoweeyey u riyaaqay ku farxay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor oo maanta baarlamaanka maamulka galmudug ka hor sheegay in isagu uu oofin doono galmudugna ay ka dhici doonto doorasho qof iyo coda oo wada ogal ah sidaasna isagu uu ku dhaqaaqi doono waayahay mar haddaynu ognahay in xaaladdu ay halkaasi marayso jubbaland ay qaaday dhaba la mida tii puntland oo ay xiriirka u goysay dowladda federaalka soomaaliya maxaa xal ah dad badan waxay leeyihiin waxaa xal ah in madaxweynaha soomaaliya uu doonistiisa ka laabto markaan uu nabadooneeyo marada tuurto odayeeyo dalkii isku raadiyo somaliland baa horey u tagtay puntland baa ka daba tagtay jubbaland baa maanta ka daba tagtay koonfur galbeed baa iyaduna laga cabsi qabaa inay sidaas lamid ay samayso waxaa harayba waa banaadir galmudug iyo hirshabeelle marka waxaa la leeyahay madaxweynaha soomaaliya haddii xaalku uu sidaas yahay waxaa waajib ku ah baa la leeyahay in uu maantay ka soo laabto wax walba oo damac iyo doonistiisa isla markaana uu dalkii inta maqan uu isku raadiyo waayahay SSC Khaatuma maxay sheegtay qoraalka ka soo baxay SSC Khaatuma bal aan eegno oo iyaduna ay ku garab istaagtay puntland iyo jubbaland SSC Khaatuma ayaa ka hadashay maqnaanshaha puntland iyo jubbaland ee dowladda federaalka ay xiriirka u jireen waxayna sheegtay SSC Khaatuma in lagama maarmaan ay tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay raadiso labada maamul goboleedba baarlamaanka SSC Khaatuma oo maanta ka dooday go'aanada wax ka beddelka dastuurka kaas oo guddiga gacanta ku haya ay soo gaareen magaalada Laascaanood ayaa waxa ay bogaadiyeen dadaalada ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bixinaysa dhamaystirka dastuurka dalka waxa kaloo lagu yiri qoraalka waa lagaba maarmaan in la raadiyo dowladda Puntland iyo sidoo kale tii Jubbaland iyo dhammaan cid kasta oo xaq u leh in wax laga weydiiyo si loo xaqiijiyo talada wadaagga isla ogolka siyaasadeed kaas oo ay bulshada Soomaaliyeed u horseedo midnimo horumar iyo xasilooni siyaasadeed ayaa lagu yiri SSC Khaatuma qoraalkeedu waxa moodaa inuu asaguna uu leeyahay Puntland iyo Jubbaland maqnaanshahoodu dowladda Soomaaliyeed ma jirayso wax hirgelahaya iyo wax soconayana male labadaas la raadiyo وهجاج حالته هالكاس اللي مريسا ورا السداس عن دين شجني أو برامجنا عن دين كل شجني سوى البوا يسك استبا حالته إيمنك هالكاس كتاعنا تجيب له واحد اللي هي مرة دي أحمد مدود إسمري وتبع عدل ويقاني خلاف كسرية فدرال كنا مرة ما نجمل اللي هي إلا أنت حسن محمود دور شو كقبنا يدلك أحمد مدود دور شد وقبسنا ومدهر اللي يقاني جودي دور شوين كي هرنا isagu uu doorashadan hadda u qabsanaya tii koreysay waxa gudoomiye ka ahaa ra'iisul wasaaraha imanka Xamse Cabdi Barre gudoomiye doorashooyinka Jubbaland soo noqday xilligaas oo farmaajo uu doorashadaasi diiday laakiin mucaaradkii xilligaas oo Xasan Sheekh Maxamuud ka iminka madaxweynaha ah uu ku jiray ayaa Axmed Madoobe garab istaagay doorashadiisii xaq ku tilmaamay calaamasaarkiisina diyaarad ku tagay xilligaas dowladda federaalku ay si weyn uga carooday tilaabadaas laakiin maanta waxa la leeyahay hadii doorasho uu qabsado si lamada sidii mucaarad uu farmaajihii shalay diidanaa doorashadiisa uu ku jiro ayaa la filayaa inay ka degaan magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galaan Ethiopia ay ka qayb gasho Puntland way tagi doonto oo siciidanay isaguna barigaas diyaarad buu ku tagay si walba iyo si kastaba waxaa jira warar sheegaya in magaalada Kismaayo ciidamada AMISOM ama ciidamada midowga Afrika laga yaabo qaybtooda in la geeyo si ay amniga ra'iisul wasaaraha u ilaaliyaan sidoo kalena doonista Axmed Madoobe ay halkaasi uga hor istaagan laakiin si walba ay ahaataba wax walba haatan meel adag marayaan waa mahadsantihiin waa daawashadiina intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono anagoo isku duub waxaan leenahay sidaas nabadgelyo muuqaalkan la garay si share garay oo saaxiibadii la wadaaga janaalkan ku soo fiira nabadgelyo